jeermaanku iska ogaa gabadha bodyguardka inay manaxda tahay Yanran markaan waxay qorsheynaysaa qorshaha weerarka inay bilowdo laakiin martin lama filaan ayaa meesha ugu soo baxday oo Heisu meesha kama filanaynin imaanshaheedan aad ay ugu naxaysaa waxayna ka sii daraysaa markay Heisu dhanka Doomin xagiis aado iyadoo markaa ka cabsanaysa inay u sheegto qofkay tahay Heisuna qof aan la qiyaasi karin wax ay sameynayso laakiin ma fashilayso sidoo kale Yanran markaan waxay u maleysaa Shanyin inay soo dirtay Heisu lacag darteedna halka u timid laakiin lama filaan ay ku noqonaysaa kadib markay Heisu u sheegto inay halka u timid kaliya inay la noqoto saaxiib kaliya hal shuruudna ay wadato intay halkan joogayso inay qarashaadka iyada ka bixinayso maadaama ay qorsheynayso inay cabaar la joogto Yanran waxay u maleynaysaa gabadhan inay ku noqon doonto mixnad laakiin waxay u noqotay garab dadkii xaafadda markaa waxay bilaabayaan xafladii waxay halka u yimideen xafladda kaliya maahan ee waa inay baaritaan ku sameeyaan Yanran qofka ay tahay isla markaas ninkii booliiska ahaa ayaa wuxuu bilaabayaa su'aal inuu weydiiyo wuxuuna Yanran ku leeyahay gabadhayda ayaa waxay dhigataa jaamacadda gabdhaha ay yeeshaan adiga dhismooyinkaas waa taqaanaa soo maahan Yanran way ka naxaysaa su'aashaas maadaama ay aqoon saas u lahayn isla markaas ayaa Heisu soo boodayso oo sheekada dhab u wareejinayso si Yanran u badbaadiso kadib askarigii su'aashiisa labaad weydiinayo wuxuu weydiinayaa gabadhiisa wariyada ah ee Paul yiraahdo inay taqaanay in kale Yanran mar labaad way aamusaysaa isla markaas ayaa Heisu intay soo booday ku leedahay gabadhaas waa laga garanayaa oo gabar wariyad fiican weeyaan maadaama sarkaalka u arka labada su'aal uu weydiiyay Heisu inay dhaafsiisay halka ku joogsamaayo su'aashiisa saddexaad ayuu weydiinayaa wuxuuna ku leeyahay adigii Heisu miyaa soo dhigatay jaamacadda Yeeshaan la yiraahdo Heisuna waxay taqaanaa xirfadooyin khaas ah maadaama familada lacag leh ay u soo shaqeysay una soo noqotay naani ilmahooda isla markaas ay waxay bilaabaysaa dansiga ee dadka maalqabeenka ay jecel yihiin si dadka u shaqo bixiso malayaan jaamacaddaas inay ka soo baratay si fudud ay halka ugu baabi'inaysaa shakigii weynaa ee dadkan qabeen markaan dadka xaafadda badankooda way aaminayaan Yanran markaan Abukatili ay wacaysaa isla markiina wuxuu weydiinayaa inay halka joogto Heisu inay joogto ay u sheegaysaa waxayna weydiinaysaa sidii halkan ku soo ogaatay wuxuuna ku leeyahay aniga soo ogaanay inay Shanyi soo dirtay in kale waxayna ku leedahay qorshaheena waa inaan bilownaa taleefka in ugu baxaysaa kadibna sabuuradda ay imaanaysaa waxayna calaamaysanaysaa Doomin maadaama qof kaliya ka shakisan oo u dhiman asaga uu yahay Yanran way fahansantahay haddii ninkan shakiga ka bixin inay qorshaheeda halka ku baaba'ayo laakiin weli lama socoto inay hooyadeeda gacanta ku dhigay Shanyu duqda wuxuu ka rabaa inay u sheegto gabadheeda meesha jirto laakiin maamada waxba kama oga gabadheeda meel ay jaan cirib dhigtay waxaan macquul ahayn inay la noqonaysaa asiga sidoo kale naagtii loo yeelay soo daba dhigay naagtan si warbixinteeda u soo gudbiso gacanta ayaa lagu dhigay iyadana labadooduna wuxuu u bootanay inuu dili doono hadii uu sheegin warbixinta uu doonayo laakiin wuxuu xaqiiqsanayaa inay waxba ka ogeyn waxayna weydiinaysaa sababta uu doonayo wuxuuna u sheegayaa gabadheeda inay guursatay abihiisa duqina uu geeriyooday markaan dhaxalka ay doonaysa inay la gambiso markaas ay ku leedahay family ayaa banaanaya soo maahan gabadheeda xariiftinimada noocaas aniga ayaa ku soo koriyay ku leedahay sidoo kale waxay halka ka ogaanaysaa maamada in naagta la joogtay warbixinteeda gudbinaysay Shanyin waxay ogaanaysaa Shanyu inuu gacanta ku dhigay Yanran hooyadeed wax warbixin fiican oo ka helin beddelkeed cunto le uu siiyay laakiin maamadii Shanyu waxay ku gorgortantay hadii gabadheeda soo hesho wax faa'iido ugu jiro iyada la sii doono taasoo la yaab ku noqonaysa in gabadheeda iibsanayso asagana wuxuu qaadanayaa inay ciyaar la dheerayso Shanyin markay weydiisay howlahiisa meesha u marayaan wuxuu sheegay inuu mar Yanran gacanta u soo geli doono laakiin wuxuu ogeyn fiidiyoo asigoo shaqaalaha dhibaateynaya in warbaahinta loo gudbiyay Abukatili uu diray Shanyin ayaana tusinayso Shanyin arrinkan aad ay u careysantahay maadaama sumcadeeda ay hoos u dhimayso qofka xadgudubka uu ku sameeyay inuu qof shaqaalaha oo haweeney uur leh fiidiyogana dadweynaha ayuu ku kicinayaa taasoo kamaniga dhibaato dhaqaale u keenayso kadibna dharbaaxsha ay ugu jiidaysaa asagana wuxuu ku andacoonayaa arrinkan iska fudud inuu yahay gacan yaraheedan oo dhamay karo dhanka kale Heisu waxay bilaabaysaa inay baaritaan ku sameyso qolka Yanran deganeed kadibna sabuuradii dadka ay ku qoratay ay arkaysaa waxay sidoo kale soo bixinaysaa boorsadii sidii baaritaan ugu sameysay iyadana login boorsada ku xirnaa waxay ku furaysaa saddex nambar ee u horeeyo ee Abukatili dabeedna boxka ay ka soo bixinaysaa lacag ku jirtay lacagtii ay urinaysaa ka fikiraysaa arrimaha in la faraha la gashay labadii walaalaha markaa Abukati ay weerar ku qaadeen ayagoo booliiska dacwo ugu gudbiyay booliiskan halka waxay u yimideen Abukataha Hiiraan isla markaas ayaa goobta waxa soo gaaray labadii walaalo Shanyin markaa waxay bilaabaysaa inay Abukatiha dadaansato waxaana ku leedahay kawaran hadii lagu xiro wax isdaba marin wargeysyada dhammaan lagu daabaco wax lacagna isku difaacdana ma haysatid waxaanu ku leeyahay tabaan lacag ma haysto laakiin nin go'aan leh ayaan ahay ayada ku dhaysa daba Yanran meesha joogta sheeg kaliya intaas leey ka rabnaa hadii sidaan noo sameeysan halkan ayaa ku soo gabagabeynayna waxaanu dham wuxuu ka diiday arrinkaas kadibna booliiska ayuu raacaya si su'aal loo weydiiyo isla markaasna badla kuwii iyo darawalkii ayaa guriga ku soo laabanaya maadaama hore Abukataha ugu ceyriyay si ay hoos Shanyin u dirsato meesha uu sii wadaan Abukatili inta saldhig loo sii wadayo si hoos message ugu diraya Yanran asigoo ku dhahay qorshaheena labaad waa inaan ku dhaqaaqnaa isla markaasna Yanran qolka ay soo cararaysaa dahama ka dhamay in xirxiraysa ayadoo markaas soo baxsanaysa box yar oo ku jiray pistoolad waxayna ka soo baxsanaysaa USB meesha ku jiray waxayna doonaysaa magaalada inay aado gaarigii Doomin iyo asxaabtiisa ay hor u qaateen markaas ay mooto yar oo meesha tiil qaadanaysaa si magaalada u gaarto laakiin idin ma filin Heisu inay daba joogtay idana isla markii magaalada tagto computer iyo tigidhka newsfeed ay ku xiriirinaysaa waxayna ka kicinaysaa emailkii lawyer Lee waxayna email ugu diraysaa gabadhii wariyada ee Paul lahay ee ninkii booliiska ahaa dhalay isla markaasna wariyadii emailka ayaa soo gaaray emailkan wuxuu sheegayay warbixin ku saabsan Shanyu inuu garbaniyo private oo dibadda laga leeyahay uu la xiriiray si uu shirkiisa ugu iibiyo company-ga sidoo kale waxa la socda codad asiga laga duubay oo caddeyn dheeriya u ah
shan fiidiyowga hore gabadha uur kale u dhibaateynaya uu iska xalliyay laakiin marka aan warbixintan dheeriga ah dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa maadaama kambaniga khiyaano weyn u geysanayay codkiisana wuxuu cadeynayay in kambanigan sababta uu gaday ay tahay walaashiisa oo waxba ganacsi aan ka aqaanin warbixinta isla markii warbixinta la soo saaro shan uu aad ay ugu xanaaqaysaa maadaama ay walba walaalkeed ay ku kalsooneen iyo si jirtay wax walba uu sameynaya go'aankeeda ahaa markaan walaalihii Bamba ayaa la dhex dhigay qorshahooda labaad ayuu ahaa Yanrin iyo abukaatihi qorshahana asalkiisa Yanrin ayaa keentay chairmanka inuu soo jeedisay si labadan walaalaha loo kala tuuro markaas inuu dagaalka macaanayo qorshahana waxa la dejiyay chairmanka inuu intoon dhiman ka hor laakiin Yanrin markaan waxay u maleysaa wax walba inay gacanteeda ku hayso wax walbana sidii la rabay u socdaan laakiin qatar ayaa ku soo wajah habeenkii iyadoo la casheynaya Yanrin timaheeda bin gadaal ku xiranaysa isla markaas ayaa Doomin wuxuu soo xasuusanaya Yanrin markii bodyguardka ahayd ay sii socotay inay isla iyada tahay qofka guriga chairmanka ku arkay inay iyada tahay isla markaas ayaa iyadoo soo socotay ku wacaya Yanrin waa adiga qofka inuu newska lagu soo qorayo Soomahan isla markaas ay iyadoo makaagsan soo jeesanaysa kadibna waxay ku leedahay waa aniga Doomin inkastoo ogaado qofka ay tahay haddana ma doonayo inuu fashilo laakiin wuxuu ku leeyahay si degdeg ah waa inay ugu baxdaa magaaladani halka iyadana ay ku dhahayso meel kale aan ma garanayo markaan waxaan arkay abukaatili in saldhigga booliiska laga soo daayay isla markaas ay Yanran soo wacayso waxayna weydiinaysaa Doomin meesha uu ka jilcan yahay wuxuuna u sheegayaa inuu kaliya ka jilcan yahay wiilkiisa subaxdii xigtay Yanran toos ayay waxay ugu imaanaysaa Doomin kaliya uma caddeeyay inay bixinin oo toos ayay waxay u raacaysaa beertiisa strawberry-ga uu ku beero ayada doonaysa inay caawiso ayaga dhanka kale waxaan arkaynaa Sunwoo eelabar ku sii cararaya isagoo baxsad ah kana baqanayo walaashiisa inay dhibaato gaarsiiso laakiin walaashiisa Sunya wardiyada ayaa gacanta ku dhigay intuuna baxsanin isla markaas waxaan arkaynaa maamulka sare ee kambaniga oo wada shiraya xafiis ku shirayaan kana shirana arrimaha Sanyang iyo walaalkeeda laakiin waxay la socon Sanyang inay mikrofon meesha ugu qarisay in dhageysanayso waxay sheegayaan Sanyang markaa waxay go'aansatay maamulka kambaniga inay la wareegto marka waxay qorsheynaysaa wax walba hor imaan karo inay iska leexiso xataa hadduu noqdo walaalkeeda markaas waxay la kulmaysaa wariid waxayna siinaysaa USB drive oo ay ku jiraan cadeymaha qaar kamid ah maamulka sare ee kambaniga dambiye ay galeen waxayna ka codsanaysaa inay TV-ga soo saarto dambiyadoodana cadayso Sanyang markaa walaalkeed waxay ka dhigaysaa xabsi guri halka asigana si qarsoodi oo wacay qoladii gaangistarada isla shaqeynayay kadibna uu caawinka u dalbanaya inay meesha ka saaraan dhanka kale Yanran ilmihii ayay xafraysa si qaas ah inay u dhawaanaysaa Doomin wiilkiisa cunto ayna siinaysaa Doomin markaa wiilkiisa sidii isku fahmeen naxariis ayaa galaysa oo iska dhaafaya iyada weerarkan uu ku joojinaya isla markaas ayaa banaanka iskuulka waxay ka maqlayaan qayl jantay markaan koox ay soo watay si uu xoog ugu wareego dhismaha iskuulka wuxuuna isla markaas ka bilaabo dhismaha qorshaha uu ka lahaa meesha isla markaas ayaa banaanka u soo baxay maamulada iskuulka waxayna ku sigaysan inay shil ku gasho cagafti halka Yanran ay ka badbaadinayso Yanran dharka ayaa ka jeexmay markaasi Doomin intuu xanaaq ayuu siligi ka jarjaraya isla markaas ayaa jantay booliisku wacay asigoo Doomin ku eedeynaya inuu weerar ku soo qaaday hadduu booliisku imaado Yanran siligi booliiska u geeyo waxay baaritaan ku sameynayaan aqoonsigeeda waxayna halka ka ogaanayaan magaceeda saxda ah taasina Yanran baxar ay gelinaysa isla markaas ayaa maamuladu waxay wacaysaa lawyer Lee abukaata inuu sheegaysa arrinkaasi si uu degdeg u soo gaaro meesha abukaatina markaan xagga iyo mujaan soo qabanaya si uu Yanran u caawiyo laakiin wuxuu la socon Sunwoo inuu indhaha ku hayay Sunwoo soo abukaata soo raacay iskuuska markay gaaraan ayaa baawar cad hortiisa soo jarayo kaas wadada ka xiray dhanka kale saldhigga booliiska Yanran ayaa waxa laga codsanaya inay soo bixiso aqoonsigeeda isla markaa arrinkeeda fashil marba ayaa haji saldhigga booliiska soo gaarayso kadibna booliiska ay sidaa ku mashquulinaysaa ugu dambeyn abukaatili ayaa soo gaaray saldhigga booliiska asigoo Jantan ku amarsanay dacwadii Jantan si fudud ugu soo gabagabeynaya halkaani halka Sunwoo ciidamadiisa ay leeyihiin Jan iyo cirib abukaatili meel u dhig magaalada dhexdeeda ka raadinayaan ayaa Sunwoo wuxuu arkayaa Yanran u taagan saldhigga booliiska hortiisa Yanran iyo Doomin way soo raacayaan xaafadda inay soo aadayaan markaani laakiin waxay soo marayaan supermarket si alaab uga gataan isla markii ka degtaana kooxdii Sunwoo ayaa ugu daba imaanaysa supermarketka Yanran markii aragto iska qarinaysa iyadoo ka cabsanaysa naagtii supermarketka iska leeyahay dhibaatayaan ay istusaysa kadibna way ka cararaysaa Doomin gaariga ayuu shalreynaysa si uu baxsadaan goobtaasi laakiin ugu dambeyn waa la hareereynayaa balse labadooda xirfadlayaal dagaal waa iska celinayaan inta uu dagaalka socday ayaa Sunwoo wuxuu sheegayaa 2 bilyan oo lacag inuu siinayo qofkii Yanran ka takhaluso arrinkaas dagaalka si xoojinayo Doomin wuxuu ku dhaawacmay isagoo gabadhan badbaadinayo ayada lafteeda way kala caamaysaa laakiin ugu dambeyn booliiska ayaa goobta soo gaaray sida ay ku badbaadayaan halka Sunwoo goobta ka cararayo intuu dhex siimaraayna gaarigiisa shil galayo kadibna Doomin iyo Yanran ay soo wadayaan wuxuu keenayaa xeebta asagoo uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inay joogto wiilkii Juun hatta uu ka helo uu ku leeyahay iska joog halkaani taasoo ka dhigan dadka deegaanka dhamaan inay ugu leeyihiin gabadha inay meeshan joogto halka iyada ay doonayso inay goobtan isaga tagto maadaama ay ka cabsanayso dadka xaafadda inay dhibaato geyso dhanka kale Sunyan ayaa waxay qabanaysaa shir jaraa'id waxayna u sheegaysaa wariyaasha in walaalkeed Sunwoo uu isku dayo mar dhow inuu isdilo cudur dharkan dhimirkan uu hayo waqti hadarkan la daaweynayo sida daraadeed ay waajib ku tahay in booskiisa buuxiso kambanigan la wareegto kadibna shirka ay isaga soo tagaysaa ugu dambeyn waxaan arkaynaa Sunyan inay gacanta ku dhigtay Yanran hooyadeed Sunyan qorshaheeda qorshe ciyaar maahan haddaba Yanran hooyadeed maxay ku sameyn doontaa kala soo qaybteena xigto muuqaalka laagta laga hilmaamin hadday nagu cusubtana subscribe noo saar wixii ra'yi aan haysan halkan nagu reeb waa inoo qaybta xigto